أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. كسور دواذا شانل كينا هبة محمد. أدبان دين سلامي دمانتينا إلهي سبحانه وتعالى meel walbood joogtiin ha idinku ilaaliyo ha idinku xifdiyo biidni illaahi kariim. alxamdu lilaahi calaa nicmati alislaam, alxamdu lilaahi calaa nicmati aliimaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahad oo dhan iska leh. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ahlaan, aan gudagalno mawduuceena insha allahu tacaala. ahlan wasahlan, khayr weeyaan. mawduucan ka hadlayna maanta insha allahu tacaala, ilaahay horta marka ugu horeyso khayrka hana waafajiyo, wixii sharana allaha naga xijaabo. raggeena soomaaliyeed khayr allaha siiyo. wiilka soomaaliyeed ama aabaha soomaaliyeed ayaa maanta uu ku socdaa waanadan. maanta waxay ku socotaa aabaha soomaaliyeed. aabba haddaad tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aabba kaa dhigay, mas-uuliyad buu ilaahay ku saaray. mas-uuliyad ballaaran ayuu ilaahay ku saaray subxaanahu wa tacaala. يعني مسؤولية وين بقى إلهي كسارة بكس آباد نقطة يسمعهن أذيجيو آباء وحاس كادي أولاد إلهي كاسيين إسلتشوكسين أي إلهي سبحانه وتعالى سوجذا دي أما حاس كادي إلهي أفصدي وإلما هذا هو يدود أي إلهي أفصدي. إلهي سبحانه وتعالى مركو هو يدي أفصدي. ilmahaada hooyadood markuu ilaahay oofsaday, mas-uuliyaddii horoo ku saarneed laba jibaar ah haddana ku saar markaas adig bkas qofkii garabkaadii joogayoo ayaa kaa baxay mogtahay oo ilmaha kula hayay. dee marka adigii kelibaa markan hooyana ah aabbana ah. hooyadii way tagtay, allah u naxariisto. yani waxaan ka hadlaynaa waxyaalaha badan oo dhaco inta badan. وصح مر أبيه با يعني الإسلام لبضن قف هو يا أبا أيجو أها أيا إلهي سبحانه وتعالى هو يدي أفصدي. مكستور إلهي كبريانو ومكستور قفك سبحان الله. يعني وقت جيس وقت لو جدرينين ووقت إلهي كوجت لجاء إلهي أفصريه مركز سداس نعذو وأبيه مسؤولية وين أكرته. ma waxaa la rabaa mas-uuliyaddii inuu ka soo baxo oo ku fara adeego maadaama garabkiisii tagay oo ilmihii hooyadoodii tagtay ilaahay oofsaday. mas-uuliyaddii inuu laba jibaaro ayay tahay soo maahan. inuu laba jibaaro, 3 jibaaro, 4 jibaaro oo dhaxda maro ku xirto oo yacni maalan yacni aabba adag uu noqdo, ilmihiisa korsado. hooyay aabbaba hadduu u noqon karo kollay booska hooyada cidna ma buuxin karto, laakiin uu isku dayo inuu buuxin karo. garanaysaa mid sidaas ayuu noqdaa. raggo dhan ma dhihi karno moogtahay kulligood waa noocaas ma oran karno. subxaan allah. aabba waxaa waaye aabba sidaas noqdo oo xog yani ho khalaas waa inaad caruurtaada aysan dareemin hooyadood. yani mas-uuliyad adag ayuu qabanayaa. midna subxaan allah, allaha u naxariisto, qabrigana allaha u waasiciyo, kitaabkeedana midigta allaha ka siiyo. hey xabad kaloo iska soo xareysana islaan kale, nolol kaloo cusub. waa sax, nolol kaloo cusub cidna kuuma diidayso. ilan qofkan wuu dhintay kuuma soo laabanayo. waa inaa nolol kale samaysataa. dhibma ma aha taas.
intaad ku dhici lahayd xaaraan mid xalaal iska guurso cidna kuumaba diidaysaba ilaan ilaahay baaba kuu baneeyey soo ma laguma oran hadday kaa dhimatay ma guursan kartid kuma oran ta kale idinka yani dumarku waxayba galaanbo maxaa la dhahaa yani intaasoo bilooyin inay xisaabsadaan oo dee maaragtay cadad ka baxdo maalan yani kadibba ay maaragtay laakiin idinka maanta hadday dhimato waad iska guursan kartiin laakiin kama wadi yani cidna yani idinma diinta calishaan ma aysan oran ragga muddo fulaan bay guursan doonaan ama waqti fulaan oo ninku marka wuu iska guursanaya isaga wax shuruud ah ma jiraan yani isaga lagu markay sidaas tahay subxaan allah marka iska guursa okay waad guursatay sax waad guursatay okay markaad guursatay oo dee caruurna ay kuu joogaan ma waxaa lagaa rabaa inaad yani mathaal aad yani ilmahaadii ka warhaysid nolol cusub adiga samaysatay nolosha cusubood samaysatay adiga way ku doonaysaa way ku rabtaa laakiin caruurtaada may rabtaa caruurtaada miyay rabtaa waxaan ka hadlayaa sawjada cusub yani gabadhaada cusub ee nolosha cusub ilmahaada ma rabtaa yaa og aabbihii fiican waa aabba maxaa lahaa yani waa aabba fiiro dheer leh oo eegaya caruurtiisa yani siday oola dhaqmayso gabadhan aabbana waa aabba dansan oo dan iyo muraadba kamaba lahan sidii loola dhaqmayo way korayaan caruurta ayagaa iska korayo dhib ma laha iska korayaan laba goorama waxay ka heli lahaayeen dee hooyadood sidii hooyadood u samaynaysa cid u samaynaysa miyaa jirto dee way iska korayaan insha allah aabbana waa aabba sidaa odhanaya aabbana waa aabba ku kontaroolayo oo fiirinayo oo ilaalinayo aabbana waa hore usoo sheegno waa aabba ku mitidayo hataa iska dhaafayaba inuu hataa xaas guursado wuxuu leeyahay kuwaan ma raba inay gabadh aan soo guursada ee madaxa ka kabiso marka waxaan rabaa inay aniga aan booskii hooye aabbaw haddaan buuxin karo aan isku dayo inaan buuxin karo hataa dareenkiisii iyo rabooshadiisii wuxuu raboon lahaa uu iska dansado uu yani maalan uu yani wixii uu rabay maalan wuxuu samayn lahaa hadduu guursan lahaa hadduu nolol samaysan lahaa uu yidhaahdo may taas dib iigu dhig horta caruurta ha ii kaakacaan ma rabo inay gabar madaxa ka kabiso id arxanlaay madaxa inay ka kabiso ma rabo eedaan la yaabaye axarankeed u daraana ya eedaan la yaaba subxaan allah eedadu waxa weeyaan eedada waxaan ka hadlayaa aabbaha xaaska yani maalan yani aabbaha xaaskiisa sometimes eedada oo aabbaha la dhalatay eeda fiican dee umalayn maa eeda xun inay jirto dabcan ma garanayo laakiin bini aadamka dee shantaas faroodba islama yani shantaas farood ma sidna okay marka aabba marka ilmihiisiiyo lagu kor dulminayo la rafaadinayo la dilayo la gubayo la garaacayo la gumaysanayo la bahdilayo cunto loo diidayo wax walba lagu samaynayo asagana waxba kama ogaba dan iyo muraadba kama laha yani ma ogaba subxaan allah yani wuu aaminay khalaas wax kasta way u samaynaysaa mathaal wuxuuba kasoo qaaday hooyadood inay tahay tan waxaas ma fiicno then way ku diraysaa wuu dilayaa waanu aragnaa dee inta badan way dhacdaa hooyada ilmaha way u dulqaadataa marmar qaar ilmahaaga naftirkoodaaba aabahood ku dhahaysaa warniyo sidan ay heelaay marka ayada waaba meeshaan rabay roob ma iigu da-ay waxyar hadduu ka biyo masla markii way la ordaysaa waxay leedahay cunugan sidan u ahaa sidan waay sidan abooheelow isla markiiba uu ordayaayo wuxuu leeyahay maxaasaa u sameeya bumbaja maskiin allah ilaahow intina dhashi cadaabta ka xore
haddaad aabba tahay oo xaaskaa ilaahay oofsaday oo gabar cusub aad u keento ilmahaada ilaa man raxima allah ilaa in yar oo ilaahay subxaana wa tacaala u naxariistay gabdhaha baa raxmaddii iyo waalidnimo tuso ilmaha inta kale waxaad moodaa cadow camal ay ula dhaqmayaan qaarkooga yacni gabadha waxaan u sheegayaa ilmahani aad dhashay ilmahan ninkaaga dhalay dhib la-aanaad dhashay ilaahay ooga cabso ilaahaygii oofsaday hooyadooda adna wuu ku oofsan karaa haddaad wanaag u samayso oo adi berri kamaa ilaahay ku oofsado ilmahan aad wanaag u samayso rajooyinka ah aad wanaag u samayso kuwa adiga dhashay hadduu ilaahay ku oofsado ilaahay tu wanaagsan ayuu kugu keenaya haddii aad xumaan ku samayso oo dullayso kuwa adiga dhashay ay iyadana ka go-an yihiinoo sidaasoo kale mid imtixaanoo cirkaas ka soo dhacday baa lagu salladay adigana ilaan garantiin laysma siin adduunkan waa la noolaana lama dhahay mogtahay waxun baa kugu dhici weligaa marka ilmaha yarka ah lama yacni oo maalan aad eedada u tahay ood aabbaha yacni ninkaaga ilmuhuu dhalay yacni eedaad u tahay maahan ilaahana ku baday sooma ile hooyadood hadday nooshahay agtaada maysa soo istaagi leen salaamu calaykum inay kugu imaadaan mooyaane ayadaa haysan lahayd sooma ayada hadduu ilaahay oofsaday ma aha marka inaad ku istaagtid waa inaad ilaahay ooga baqdid ilaahay ooga cabsada ilmaha yarood waalidka u tihiin kaninow adigana qoftani ilmahaaga hooyadood ma ahane waa aayadoodee waa inaad indhahaaga furtaa oodan iska dhigin xawayaan aadan iska dhigin indhahaaga fur ilmahaaga marmar qaar adiga wax sii ilmahaaga adi marmar qaartaa musqusha geli u qabee korkoodaad arkaysa xataa dila dila ninku inuu nin meel dheer fiiriya uu noqdo nin dansan iska dansan oo koronto dhan haysaninoo dam ma fiicno mog waa inaad qof meel fog fiirinayo aad noqotidood og tahay ilmahan inaysan la joogin hooyadooda yacni aad indhahaadu saas usoo jeedaan iskusha gelisid maya xaaj anaa usoo qabaynaad iska dhaaf maya iska dhaaf dhib male adiga wax kale iska sii samayso khayr allaha ku siiye caqli isticmaal waad arki cunug la dilay korkiisaad arkaysaa laakiin cunugaadan u qabaynaynin cunugaadan cunto siinaynin cunug dhar xirno halkaa iska fari iska dhaaf inaad u qabaysee qofka caqliga leh oo meel dheer fiiriyo keliya waxaad dareemaysaa cunugaaga siduu ahaan jiro iyo siduu yahay cunug wuxuu noqonay cunug la dilo oo rafaaduyo cunug iska maskiinaho indhaha saas hoos u fiirinayo iska tabcaanaho ayuu noqonayaa waa la kala fiiro dheer yahay mogtahay dadku waa la kala yacni saas qofka markaad u eegto waa dareemaysaa qofkan dadaa jiro sidaas ah dadana habaa'an waxba qofna markiiba uu fahmayaa mar qaar baan cunugta kusoo koristaago rabo inuu wax kuu sheego isla markii aad garanaysa muxuu ku sudo qof wax u socdo wax ku weydiin rabo inuu yahay in kale marka waa inaad noqoto waalid indhihiisu furan yihiin maskaxdiisa furanta caqligiisa furan yahay adiga dhan joogtid marmar qaar u qabee waad arkaysaa haddii la uleeye marmar qaar yacni wax sii cunugaas siduu xunaayo dareeme yacni ka warhayo ha ku daynin un eedo marka sidaas iyo khayr insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu